مديارين نوين داو سياسي قاية هي قيمة هبلو كسر دوالة برنامج كان حيسها بنا مركلة قرب جوبتا لو ما قدر قرب جوبتا ما أنت هالكام حيل الجوا إن العراق والصومالية أو الصومالي أمريكانا راح وكرو سياسة قناعسنا آد مارتي معها وقامياسي المشيرة الصومالية قالها قرب جوبتا كجرا صدق وفاء بسرو أهلا ما سنت أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين تقول برنامج قرب جوبتا عبديرة أهلا ما سنتي فرصة أنا أساسية ما أنت قرأها ضو ومد الصومالية أهلا ما سنتي أهلا ما سنت صدق نتينا برنامج هنا أقول قرين طبعا dadka daawanaya waxa rabaan inay ogaadaan Saadiq muxuu yahay tarkiisu muxuu yahay taariikhdiisu maxay tahay si uu macnaha programku ka hadli doono iyo isagu isu waafaqaan ama maaragtay marka bal waxay faahfaahinayaan si Saadiq maaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت آد بوما سنتين من اللغات عبديرة iyo aadan barnaamijka qurba joogta aad ma santiin aniga waxa la dhahaa magacayga Saadiq Warfaa waxaan ahay nin degan magaalada Minneapolis ilaa 18 sano Minneapolis deganahay waxaan ku soo dhashay magaalada Xamar Muqdisho ayaan ku dhashay ku soo koray ilaa dugsi hoose dhex u qaatay fasalka 8aad markii inuu imtixaan ku jiro la dagaalkii sokoy Soomaaliya uu ka dhacay markaas waxaan nasiib u yeeshay inaan halkaan Mareykanka aan imaado oo hadda aan deganahay 18 sano waddanka Mareykanka haddii aan taa ka faafiyo markaan Mareykan imid waxaan galay iskuul baan ka galay ilaa heer jaamacadeed waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda University of Minnesota waxaan qaatay siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaan aad iyo aad badan u jecelahay in aan ummadayda Soomaaliyeed si fiican u matalo anigoo Soomaali Amerikaana haddana aan jecelahay inaan aaminsanahay inaan ummadda sidii isugu keeni lahaa aan ka shaqeeyo marka intaas 18 sano ayaan halkaan deganahay magaalada Minnesota saaro socotiin waa magaalo Soomaali badan baa degan isticmaalka Minnesota magaalada Minneapolis laakiin Minnesota Soomaali badan ayaa degan dad aad iyo aad maaragtay runtii u wanaagsan oo aad u jecelahay marka the last 18 years halkaan ayaan deganaa معناها كبرتي ku guursaday ilmo ay u dhasheen marka xalii kala halkan waa homekii ma sha Allah Saadiq inta sidii ka guurino isbaridaada maartay iyo taariikh nololeedkaaga iyo maartay Saadiq waxaan ugu rantaa waxa aad ugu firfircoon tahay arrimaha siyaasadda ee Mareykanka oo waxa tahay nin dhalinyaro ah Soomaaliya oo door fiican ka ciyaaray soo nooleynta dadka bulshada Mareykanka Soomaali American dhado siyaasadooda ee Mareykanka jawooyin baa u tartantay maxaa ka mid ah jawooyinka u tartantay waa maasanta walaal aadan waa runta markii aan arkay bulshada baahida bulshada u jirto bulshada Soomaaliyeed halkaan degan iyo iyagoo aanan haysan dad matala ba waxaan isku dayay sanadkii 2010 inaan u tartamo state representative waxaan tartamay gabar la yiraahdo Karen Clark oo markaas haysatay 33 sano ay kursiga 30 sano ay joogtay markaas marka laakiin aniga waxaan arkay waxa inaan markaas aan bixin karo hoggaan cusub oo isdhahay dadka deegaanka xaafadeeda degan markaas u baahan yihiin markii aad mataqaana baahida xagga iskuulaadka iyo xagga shaqo la'aanta iyo markii anoo bulshada ku dhex jiray markaas waxaan arkay inaan codkooda inta qaado inaan geeyo state capitalka St. Paul arintii doorashadii markay dhacday November 2nd 2010 nasiib darro waa ku guul dareystay kaalinta labaad ayaan ka soo galay oo anagu waa 3 ayaan ku tartamayna marka kaalinta saddexaad ayaan galay doorashadaas marka doorashadii igu horeysay oo waxaan badan baan ka faa'iideystay experience ولينا ويقول جرتا ولا آدم أنا يعبيره ومع بعض قرب جوته إن أمضى الصوماليين هالكام من الصورة دقن أن أبع عنا هاي دنا مثلا وأنا جنو ودبعتنا دريماية إن نجينا سيمبول أنت أسمعك إن رول مود ونقول عرفت إن الصومالي ده ومثلا أن هالكام كل شيء أما كفرتي
inaan halkaan aan cidna naga lahayn maraykanka ah waddankaan aan muwaadiniin maraykan nahay oo aan degan nahay oo sidii mataqaanaa aan uga qayb geli lahayn habdhiska bulshadeed ee siyaasadeed ee waddankan habkaas ayay iga ahayd igana go-oneed welina taasna arrintaas waa ku jira walaal aad baa u mahadsantahay Saadiq waa sida uu sheegtay maxaa kugu caqabadihii ugu weynaa maxay ahaayeen maxaase kugu darnaa oo maaragtay kala kulmay maadaama aad nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo madow oo muslim ah tahay oo maaragtay arrimaha iyo challenge-ga iska jira oo maaragtay ay baraysay siyaasaddan caalamiga ah oo socota hadda jira maxaa kugu dhaliyay inaad maaragtay inaad hawshan gasho wallahi aadan horta arrin fiican baa laakiin anigu waxaan aaminsanahay oo walaalahayga Soomaaliyeed halkaan ka daawan doono meel walba adduunka jooga oo sheegay waxay tahay in horta Maraykanka mar walba waa dhahaa dadkeena walaalahayga Soomaaliyeed horta cid naga xigta male horta waddankan waa waddankeennii Maraykanka I know in America background-kan ku dhalanay laakiin halkaan cid naga xigta male xuquuq baan ku leenahay xuquuqna waa ku leenahay waajibaadna waana saaranay marka aniga state-kan waxyaaba waa garan kartaa markaa tahay nin immigrant ah oo maaragtay aad election raadinaysid yes waxyaabo obstacle waa la kulmaysaa laakiin aniga waxyaabahaas obstacle-ka ama waxaan u arkaya actually challenge waxaana jeclahay markaas challenge-gaas waxaan dhahay sidee waad ugu overcome karaysaa sidee mataqaanaa ugu gudubtaa waxyaaba iga hor imaanaya marka waxaan u arkaya faa'iido dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan rabo horta inaan badanaa halkaan kala hadlo waxaa weeye hadday degan yihiin state-ka Minnesota ama USA ama hadday degan yihiin qurba joogta adduunka o dhan ama hadday degan yihiin maxaa la yidhaha Soomaaliyaba horta inaan mar walba ogaanaa in qof walba uu barsuugareeyo ama uu raadiyo horta waxa uu jecel yahay aniga waxaan jeclaa oo weligii alle jeclaa haddana jeclaa waxaa weeye sidee dadkayga isugu keenaa that is something waxa weeye ani badanaa iga go-an tahay inaan ka shaqeeyo inaan ummaddan Soomaaliyeed inaan saan isugu keeni lahaa u midayn lahaa inaan ka shaqeeyo inaan arrintaas inaan maartaqaana aan ku dadaali doonaa halkaan waxaan election-ka ugu galana waxa weeye ilmaha Soomaaliyeed ee halkaan ku dhashay iyo kuwa soo koraya annagaba in aan halkaan wax ka noqon karno oo cidna naga xigin oo mataqaanaa fursadii taalo laga faa'iidaysan karo inaan marka arrintiina alxamdulillah rabbil caalamiin miro ay dhalisay oo waxay kaleysay in wiil kale oo Soomaaliya uu ugu dabadaydo oo isna uu station u ordo ninkastoo isna uu guul dareystay laakiin aad u soo dhaweeyey marka wadadii aan furay marka arka dad sameynaya aad bay ugu farx gelisay because aniga waxaan doonayaa waxa waa isna maaha mana ku saabsan aniga maaha ama Cabdi maahan ama maaha Aadan maahan ama Cabdullaahi ama anybody maaha arrintan waxa waa arrin noo wada taala Soomaalidana inaan ka wada shaqeyno inaan midowno danteena raadsano adduunyadana aan wax la qaybsano halkaan Maraykanka iyo waddankeena Soomaaliyeed marka taas ayay go'aan Saadiq aad baa u mahadsan tahay maxaa u malaynaysaa caqabadaha inay ahaayeen sababay inaad ku guuleysan wayso doorashadaas oo laga qaado oo second gasho iyadoo loo jeedo inaad soo dhaweysay well waxaan u arki karaa waxa way taasi mid aniga xaggayga ka timid ani badanaa waxa way dadkii doortay aad baa mar walba ugu mahad celiyaa waxaan leeyahay aaminitaanka ay ugu aaminteen codkiina mar walba from part of my heart waxaan idin leeyahay thank you dadka Minnesota degan xaafadeeda degan oo ii vote gareeyay waxaana markii idin waxa weeye it's not the end it's always the beginning aniga waxa way wada ayaan furayay caqabado waa iga hor imaadeen laakiin waxa garanaysaa aniga ma jeclina cayaaro victim card inaan mataqaanaa oo nin madow aan ahaa ama nin muslim ahaa ma ahan arrintaas waxaan aaminsanahay waxa way arrin message-kayga ahayd oo midaan mataqaanaa inaan ku dadaali doono doorashooyinka dambe oo ilaahay mustaqbalka haddii ilaahay suurtageliyay inaan kasixi doono aan ogaan doono aan ka bartay wixii tii hore igu dhaco kale marka waxaan u arkaa actually opportunity oo ah inaan message-kayga saxo oo aan ku dadaalo inaan coalition building aan xaafadaha kale dhex galno oo dadka kala soo jeedano inta isku danta ah si aan markaa u sameyn coalition ama mataqaanaa dad oo isku dan ah taas oo noo suurtagelin doonaan election soo socda aan ku badino marka fursad baan u arka taas aaminsanaya waxa weeye wax walba waxa weeye bilow iyo dhammaad bay leeyihiin marka insha allahu tacaala waxaan aaminsanayaa waxa weeye inaan arrintaas aan ka bartay wixii igu dhacay electionadii soo dhaafay mar walbana aan sameynaya hami gelinaya dhalinyarada Soomaaliyeed
halkaan degay inay arkaan inaan halkaan wax ka qayb aan ka qayb qaadan karno habdhiska siyaasadeed halkaan actually message-kayga taa wuxuu gaaray adduunka dhan dhalinyarada adduunka Soomaaliya oo noolba joogtaa waan la hadlaa waxaan mar walba u sheegaa waxa weeye inay ka qayb galaan meel walba meesha ay joogaan waddankooda inay dadkooda ay matalaan ogow qof kasta oo Soomaali oo maanta daawan doona qof kasta xataa aniga haddaanahay aniga tahay kulliga waxaan ambassador oo waxaan wada sidanaa jinsiyad kasta aan qaadan laakiin weliga alleynanu Soomaaliya nahay dadkeena ayaa matalnaa haddaan marka wax fiican sameyno Soomaali baa qaadanaya haddaan wax xun sameyno Soomaali ku dhacaysaa marka dhammaan waxaan nahay ambassador sida magaceennii iyo dowladnimadeennii iyo qarannimadeennii aan dib u soo celin lahayn weliba aan la hadlay dhalinyaro Soomaali inta aniga yar oo soo koraysa inaan waddankeennii Soomaali iyo halkaan iyo meel walba qurbaha joogno inaan mar walba aan waa yiraahdaa aan ku celino inaan nahay Soomaali number 1 inaan horta aan diinta islaamka naga dhaxayso ilaahay alxamdulillahi rabbil caalamiin muslimiin aan nahay waxyaabo way dhaceen qaladaada laakiin aan saxno aan hore move forward hore aan socono marka waxyaabahaas ayaan mataqaanaa in bulshada Soomaaliyeed meel walba daawanaysa aan ka codsanaa waxa weeye inaan mar walba midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed aan mar walba wada shaqeyno aad baa mahadsantahay Sadiq Sadiq ma oran karaa Sadiq iga raali ahaw magacaaga معنى ما هذا ما أصلاً وصادق ورفاع صديق ورفاع صديق ورفاع أوكي صديق من أورانكرا حاجة حن لسرد حمر الصومالي لا وللي هاي دب تجرت أو سياسيين الصومالي وصل بحوين من الصوت قبل كان يبدأ أو مريكا كبا وهواي وحرية بقى إلي فوت في عن كهلان أمريكانس كله أو إثنيس كله أما background كله لكن الصومالي أيسن معناها قضين أو أولين أو سياسة كقيب قادم أو معناها فود إنه فود كريان أما سياسي وصبحه أيسن فهم سنة أرماس صادق أدي وح مكتب النساء مثل ما ضد قبص ما لقطع مايل أنا وحنا مثلا حوالي الصومالي من الصمر البحر ضد وحنا آز وجع أو مدرسن community مرة بنأسودها ومدرسنا هالقف ومنطقة هذا الحين ملك قصارها I think سنة مسنة وحوي ضد كان من الصورات دين الصومالي دينا بدنا ضد يقصوا ماشي صدقان هاي وأسامر لواد الوحوي 18 years بدنا أنا جاي شغل كان كل عيسى إن أن وضلي أسي حاله كون قدم بيا كوسي دلنا دونا مركا أنا قلت إنك وضع شغلنا من النووي الصومالي هل كان دقنا واد دقني الماء يعني أول شيء محلي هذا وأنا حاول قلنا متقنا وضعنا دباتيسن إسلام كان دباتيسن ما مضى حلق عنق ولا تلو عنق ولا أو أنا هيسن محلها أنا هيسن محلها ننقبة وعاوية أو لغة دقرنيني مركا أنا مركا أوردا election كوحة ودت كاس أنا ربعنا متر because وحن أوجا هاي نينك قالك أما قفك كلا أو شخصية كلا ما قرن كرد دبعت هذا برشلي ده هيست هل لكن صادق ما أمسنت هاي الصومالي ده أنت شرعي وقولانا إني عضيان إني عدك وفرنسيين وإدلالين وعدك دمسترين مسي ولي قيبة بيها جوتي أنا لي كو عضيان معنا well you know والله نعيد كسبها هو ورطة قار إلى سعودية مالية إن شاء الله next time معك عسلات كاسولنا عضيان waxaan ogaanaa waxa weeye waana qofka codka markaa siinaysa actually the right ugu weyn oo qofka citizenka xuquuqda waddanka ku leeyahay waxa actually waa the right to vote marka qofka aad dooranaysid oo qofka matala waa wax weyn maxaa siisa qofkaas wixii ugu dambeeyay right ugu dambeeyay marka aniga waxaan aaminsanahay waxa waaye waa ku noqon doona dadkayga insha Allah taala markaan weydiisan doono mataqaana aad bay kulli aniga ay jecel yihiin ومتقنا I think ومركان لكم ذلك الصومالي because أنا بدنا نروح controversy أما وحيابها دبعتها مجعل وحيابها سيمبل وتاعنا وحوي سريه هل كان دان رن من الصورة أو ذلك كان من الصورة دقنا هاي وهالكيف المهنة وحبر شوف في عكوهلان ويلكينا عفمات في عكوهلان محلي هذا ذلك كلا ده الشقين الشقة في عكوهلان محا أنا قلنا مدين كره maxaa danteena ka marka intaas gaarno maxaan talo iyo wanaag aan ku kordhin karnaa walaalaheena Soomaaliya ka soo qaxnay oo Soomaali jooga maxaan ku caawin karnaa macnaha waxa way dadkaas Soomaali jooga iyaga naga waddanka kaas iyaga ku nool laakiin anaga talo fiican oo constructive ah oo aan amal
adduun style la noogu nool yahay adduunku waa tegey waxaa isku haysatay mataqaanaa waxyaaba yaryar oo macno lahayn marka inaan annaga tala fiican siino halkaan aan ka shaqeyno midnimada sembri waa dhaha dhalinyarta Soomaaliyeed aad ay u dadaalaan iskuulaadka qaar badan baan oo jaamacadaha maalka soo qalan jabiye high schoolada aadaan inta kale oo mataqaanaa waxyaabaha maanta ku dhacayna waxaan ku dadaalno way inta u kacno aan cunugaas aan tutor siino macnaha waxyaabo bulshada baahida way badan tahay marka laakiin dadka waagiina in badan baa isoo baxday codeysay I'm always thanking from the bottom of my heart waxaan leeyahay thank you insha Allah ta'ala marka waxaan kaloo ku dadaalayaa waxa waaye inaan ka shaqeeyo midnimada Soomaaliyeed dhalinyarta waliba inaan mataqaanaa isku soo dhaweeyno danteen aan ka wada shaqeyno sidaan wadanka wax ugu qaybsan lahayn insha Allah ta'ala mataqaanaa Soomaaliyana aan maartaas waxyaabaha wanaaga iyo tala fiican u siino wadankeena Soomaaliyeed أدنى ما سنتها صديق وفاء حدي سؤال وده ما يسوى عنها السياسة الأمريكية خاصة جوه كمنصة سؤال وده ما كاوديو ما فديني سائنا جهود مو سياسة وترتمتوا دولة أرنتاس هدي أهديني سيسم حاكلة لهن سي أنا وفي الجرام سيدي أكون وفي الجرام ما حدا كسومالي ده قوة علينا كلها تلمية سي أنتاس يو كل فوتريس كان إكس لها هذه حكوا تلمية سي أنت الروبوس والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هذه أظن بسنة آدم برنامج مغرب الجوك فرصة أن قالي إن السي هو السنة يعني حالة السياسية وده كان ورثوا حرب أنا أردت كلام كهذا جعله وحوي مانت إن الصومالي أنا حيابي يودي سكجعله وحاول أن كان لو بعني واحد حاول أنا مستقبل كيساسات ولي I know we're doing بنوات ولكن ولي I think إن حاجة I think I still have some time left مركي أنا ولي وقتي دمي إن شاء الله تعالى مركي أنا صورنا بندونه ولي ضدكي دور شوي كي يفرح بنا ولي هم بيقولي إنه واحد ربي لهاين أنا قبضنا cross line بدبه marka sidii aan dadkaas aan maartay magacoodii sarabtooda duwan anta u gaari lahaa tan kama haray marka insha Allah ta'ala taageeradin marada inay kaga baahnaay marba inay kaga baahnaay waxa ogtiin xameena waxa weeye waxa soo socda aan rabaa fastaan ugu faa'iideysto waxa weeye waxa soo socda caucus-ka la yiraahdo Minnesota caucuses waxa kaloo soo socda waxa la yiraahdo redistricting oo hadda Minnesota mardow waxaa dhici doona waxa waaye every 10 years oo ogtiin 2010kii censuskii ama tirkoobkii bulshada markuu dhacay state legislature waxay sameeyeen waxa weeye Minnesota districtidii baa la kala boundary ama xuduudidii baa la kala sii sameynaya marka waxaa kaloo soo socda caucuskii oo dhici doona February below February 2nd and 3rd talaadada maanta February ugu horeysa ayuu dhici doona hadii ilaahay marka waxaan jeclaan waxa waaye Soomaalida iyo dadkeena walaalaha halkaan barnaamijka daawan doona dhalinyarada waliba Cabdiyare iyo Aadan dhamaan u sheegay ama dhalinyarada barnaamijka daawan doonta oo barnaamijka Minnesota in habeenkaas caucuska la tago in xaafadda precinctiga ka vote gareysid inaad tagtid oo aad ku dadaashid leadership positionada leadershipka inaan noqotiin because waxa dhacdo marka xisbiga badana oo aan markaan rabo inaan tartamo amal hadhow waxaa dhici doona central committee baa jira xaafadda markii caucus central committee ku xiga iyo body convention-ka marka hadda badana aad president captain-kaas ama aad caucus-kaas aad dad Soomaali soo wada galgalaan hadhow waxa way xisbiga waxaan ku influence gareyn karnaa bikaada badan ayaa hoos soo buuxsamay marka fadlan waxaan ka codsanayaa waxa way arrinta alshabeey February marka caucus-ka dhici doono in aad tagtiin qof walba xaafadii uu ka vote gareeyay inta waliba dad qaadatiin dadka ugu faraha badan ayaa dad dooranaya hadda habeen ku tagtiin konton qof oo kale oo adiga ku badatiin adaa waxaan noqonaysaa Chairman Central Committee President Captain-kii wax walba ninkaan noqonaya hadda markaas waxa way arrin noo fiican waxa meelihii badan baan soo gelinaa mataqaanaa bulshada waxyaabaha loo baahan yahay waxa waaye marka caucus-kaas February inaad tagtiin baa jeclaan lahaa midda kale inaan ka hadla doonaya waxa weeye waayan Soomaali halkaan aan maanta ilaa iyo hadda marka aan ka imaaday arrinta xawlaadayaasha waxa weeye walaalaha media aad u cover gareeyeen hadda meetingkii Britol oo Friday state capitalka waxaa ka jiri doona mataqaanaa mudaharaad weyn oo aan rabo in qof walba uu ka soo qayb galo arrintan xawlaadayaasha actually annaga waxyaabaha u taageerin waxa ka mid ah xawlaadayaasha qof oo sharaxayna male
qof kastoo halkaan joogo dad ehel ama qof ka sotay ayuu Soomaaliya meel walba lacag loogu diraa marka meeshaan dadkeeni lacagta u marsiinayna in bangiyada ay naga xirmaan waa arrin mataqaana cun qabteen waxaan kaloo doonaynaa waxa waa inaan barashar saarno bangiyada waxa waa hadda banki ugu dambeeyay Franklin Bank kii ugu dambeeyay waa arrimahan waa arrimo aad u culus waxyaabaha loo baahan yahay waxa waaye inaan horta midowno ogaano inaan isku dalnahay danteena hadda waxa mataqaanaa inaan midowno arrinta xawlaalayaashana mataqaanaa waa arrinta kaliya aaminsana waxa waaye oo kulli qof walba oo Soomaaliya taabanayso because waxa waa dhaqaalaha Soomaaliya dadka lacagta loo diro Soomaaliya qof baa ku shaqeeya lacagtii waxay samaysaa impact ay ka samaysaa xagga dhaqaalaha marka arrintaas ayaa ma xawlaalayaashana inaan aad uga xunnahay oo aan ka mudaaharaanay oo aan weli ku jirno mataqaanaa sidii aan dowladdeena Mareykanka uga dhacsiin lahayd in xawlaadda ay tahay live link oo Soomaaliya mataqaanaa inaan uun keena tahay ayaan ka dhacsiinaa insha Allah taala guul baan rajayn doonaa hadii ilaahay Sadiq haddii maaragtay aan xogaa ku sii raaco arrimaha xawladaha iyo arrimaha caqabadaha oo Soomaalida la kulmaa badanaaba waxa sabab looga dhigaa waxyaalo innaga marka hore la yidhi inagu aan sabab u noqono tusaale hadda kasoo qaadano migrationka waxaa la sheegay dhalinyaro badan markii wadankii aadana soo laabtaan in dib la dhigo iyo dad shacab oo Soomaaliya xawlaadihii sidaana laynoo ka xiray arrimo badan waxaasoo dhanna sabab waxa looga dhigaa kusi elements innaga ka mid ah inay dhibaatooyinkaas sababeen sidee looga bixi karaa intaynan eedayn dadkii cunaqabateyntan ama dhibtaan waxyaalihii ku soo hogay intaan eedayn inagu sidee arrinteena u xalisan karnaa sababaha waxaa keenay terrorist link waxaa layidhi waxa loo isticmaala xawlaadaha transaction oo kooxo terrorista lagu gudbinayo lacag dhalinyaradeenii baxday oo aaday halkan laga rukubayo waddanka ku laabatay marka intaynan cid kale eenan innaga eedda waxaan ku yeelan karnaa mase u baahanaa inaan horta inagu isa saarno والله هو سؤال في عن آدم horta qofka dusta muraad isku fiirin oo horta khaladkiisa ogaanay ma sixi karo marka anaga qadaad waa leenahay laakiin dadku inaa waxaan rabaa halkaan ogaadaan horta xawlaadayaasha badana kulligood Minnesota state-kan way ka registraysan yihiin federaalkan way ka registraysan yihiin waa niman license oo sharci wax sharci ay jibinaan dowladda iga ma haysato waxa waa bangigiiba unbaa iyo mataqaanaa lama shaqayn karno bangiyadii baa yiri marka lacagtii meel marsiyaan beensay waxaad dowladda ay ku dhigantaa mar taas marka bangiyadiina run way waxay leeyihiin dad baa lacag ku diray oo lacagtii meel mataqaanaa loo maray dadkaas argagixisada tagtay arrintaas ashoo way mistake-gaas ugu dhacay wayna ka baran doonaan laakiin waxaa la yidhi maalin walba hadalka meel buu taagan yahay maanta waa laheen xawlaalayaasha iyo dhammaanta annaga o dhan maanta waa dhibannahay debategaas waxaa aaminsanahay mar kale ayuu noo yeelaa laakiin maanta waxaa weeye sidee baan live linkigaas ama xawlaada dib loogu soo celin lahaa oo mataqaanaa ay ummadda Soomaaliyeed ee dadkooda lacagaha u dirsan lahaayeen taas ayaa aad loogu baahan yahay oo annaga inaan midowno oo aan really danteena guud aan ka midowno Soomaaliyana dhalinyaradii baxda igala hadashay annaga haddaan reer Minnesota Americanka ama message-ka aan badana aan u diray dhalinyaro Soomaaliyeed oo meel walba joogto waxaa weeye haddaad fursad u heshay in aad Mareykan timid oo aad ka faa'iidayso fursaddaas waxaan ka wada xagga waxbarashada jaaniskaas waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaali jooga inay seegeen marka intaad waddankaaga intaan noqoto aad isku qarxin lahayd waddankaaga adoo dhakhtara ama adoo injineera ama adoo mataqaanaa ku noqo oo dadkii waddanka u baahna caawis saas aan dhalinyarada kula tagan lahaa dhammaan dhalinyarada waxaan kula tagnaa waxaa weeye intaa adoo mataqaanaa intaa baxdeed aad isdili lahayd oo aadna qof kale oo kala dili lahayd inay ka fiican tahay inaad sida positive intaa wax baratid waddankaaga dib ugu noqotid waddankaaga dib usu dhistid soo celinta Soomaaliya arrin fudud maaha soo celinta Soomaaliya arrin fudud maaha waxay qaadanaysaa waxaa waaye dhammaanteen annagoo adduunyada meel walba kala nool inaan isku tagno aan ogaano maxaana mideeya aniga adiga maanta aadan waxaana mideeyay cabdi maanta yaraal ah oo aan ka dhexgalay haddii aan usoo noqono waxyaalaha khaladaadka oo jira oo naga ku eedeynaa oo keenay sababtan noqotaynta ama ku soo rogay xawlaadaha ganacsigeena iyo maaragtay arrimaha kale oo migration iyo waxaas ma la oran karaa
qoliyahan ganacsatada ah lacagta laga hadlayaa oo la xawilaa sanadkii waxaa laga hadlayaa boqol ilaa 200 oo milyan baa laga hadlayaa sanadkii in la diro. Okay, maadaama ay dhaqaalaha leeyihiin ma la oran karaa farsamo xumo ayaa dhexdooda ka jirta, ma la oran karaa midnimo xumo ayaa dhexdooda ka jirta, ma la oran karaa macnaha professionalism la-aan baa jirta maxaa yeelay iyaga xataa banki samaysan karaa, ma la oran karaa taxadar la-aan baa jirta. xawladuhu waxay samaysan karaan banki, waxay ku kala qaybsan yihiin baa layidhi arrimo qabiil iyo arrimo maaragtay siyaasadeed oo ku salaysan waxa Soomaaliya ka socda. taas miyaan inaga marlabaad eedaas ku shaqeeyo waqtiga kale? والله هذا ما أنت هركان وحارة أنا كشيء ورت Minnesota أديك إلا عشان يتون حاول أبطل لو قد ويمدسين لو تذكر حسين مجين أشر association بالليل وما أتيجي من ده العقد الدران بقولها 10 مليون وسنة كي والعقد في عام سومالي كش وحيابها أكون كلا تبسينيين أنو ما أبغى نبغيين لكن وحدوه وحاول هذا إني نوبة هنيين وسيدي ما تحول هذا لصق ديننا أنا waxaan aaminsanahay waxa weeye inay ashway markii hadii ilaahay idmo ee arinta ka gudbaan inay ka fakarno hadda waxa jiro wax short term oo maanta xawladeesh inta baan furan laakiin wax long term ina badana ay lobbyist yeeshaan waa loo baahan yahay in ogina wada dareemay inay mataqaana lawyer qabsadaan lawyer weeleen ashway waa leeyihiin in ma dad u doodo oo mataqaana oo coalition ay sameystaan marka aniga hadda ويدلالي والله وادد متخانة هنتي ذكر نوعنا أكثر بدنا وبدنيين وأنا واحد قبيل وكمان أعرف مركا أنا قبيار أدان قبيارد أو قبيارد استعماله بدنا قف أنا جاري كرين همي ديسي مرك والربع إنه قف كله هو صوص بيجو مرك واحد مثلا أنا سومالي شو اللي وحنا هاي هل جسد هل قف بان هاي سنة مثلا هاي أدي أنا كل قف سومالي والضبط تابته أنا والضبط تابته كله marka waxaan aaminsanahay waxa weeye in arintan waalina xawlaad aan kala shaqeyno sidii loo soo furi lahaa iyagana insha Allah taala wax gudaana xaw inay hormaraan oo ay dadka tacliin ay mataqaana shaqada geeyaan waxaan kaloo ka codsanayaa waxa weeye xawlaadash waxa weeye inay community dib u investigateystaan oo mataqaana ardayda oo iskuulada inay scholarship qaar siiyaan ee mataqaana si mataqaana aan u barano film therapy wax la yiraahdo إن مركب قفك واحد جلسة قفك العكسية إن أحيانا ما هو أنا باهي ما بس إنك سمعنا ميول بجوجان إن ذاتك أديك واحد جلسة سي متقنا أو أورنا society أو responsible أو متقنا ودن كين أن أجانا وإحنا قد حياة وحياة واحد يرتسوا ماله أن تنتي ربع إن ما أنت أن هالكام فرصة نقول هذا يستقبل بجوج تحوي كو ورتسوا مالنا as number one ورتكو استغفر الله كو إسلام بنا إسلام بكو إسلام مركانا هي أمر الله سمعنا إن أكيد إنه وحوي مركو حلو بهني وحوي أمرها حاس الدنيا مك كمان الدنيا وحنا أمسنا وحوي إن جاري كرنو إسقابسي يهرمر ونكسر نيل أورنجري داسين بين بالحبنا جانا صمروها كي كوري وجانا زمين بكوري 1979 إلى 1980 وأنا كي جانا فرفروه وما مو كدم بي نكى جانا فرفروه وحرب أنا سامبل عن أستماع ده كيسو بيجري أدونك أدون مركا أدين وحبرش اللي يقصوا عليه جانا مركا 1979 جانا وقرك the last 20 years وحيابها أدوية لقى هذا وحواي almost أفر بقول مليون أوقف وجانيس أي بافر تكتير وما تقال almost متقال نول في عنده أفر بقول مليون أوقف that's a huge number محكو قارين market liberalization كماركت كأوفري إيوه تذكر talent الجانيس كأودن كل دبنا وحقلي أنا مركب محارة Soomaali لين دياس برضه whether أنا Soomaali American جون UK جون Europe جون أستراليا جون كينيا جون ما جون إن أن كل جين هرت عن كشطين إن ودن كي Soomaali الأورنجري عد ما مقنع علم مقنع أنا جاي أمقن وإنا هرت بدنا كفكرنا حوا أنا جاي always وحواي قبر قال لك دري وحوا إن أن كشطين من مدة Soomaaliya وأنا آلي أرجع لنا واحد اللي رسم البرنامج كده متحول إنها هرت إله جعل يودن جعل يدد جعل حتى مرك أنت هنسكوه إنه وأن إلهي نكعب سنه ووحيابها الريسك عن كتجنه وحلاقيها بقول كي بقول ومدة حسكم راعته حتى لكن سجاش نسكور راعنا أنت ممكن لكن أو disagreement تجا إنهم كبر بيننا سجاش كلامه
marka inaad tanaasul loo baahan yahay inaa mataqaanaa xilligii la gaaray 21 sano waxaa muddo dheer way maalin weeyda mataqaanaa nagara la hadlay waxaan ku dhahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa daraawiishtiisii 21 sano ayuu xilad dagaalamayeen gumaysiga Ingiriiska Maxamed Siyaad Barre dowladdiisii 21 sano ayay mataqaanaa dowladda Soomaaliya ay madax ka ahaa sanadkii 2011 waxaa dhamaaday 21 sano oo civil war ana marka waxaan aaminsan mar walba waxa waaye civil war uu soo xirmay Soomaaliya dib bay isku qabsanaysaa annagii oo taariikhdan ku cilina oo ummadeena la shaqeeyna oo gacmaha is qabsana wadankeena dib u soo dhisna opportunity iyo mataqaanaa fursado carruurteena Soomaaliya siina ilaahayna ka cabsana hore u soconnaa sanad 2012 waa sanad cusub waxaa waay Soomaaliya way soo noqotay insha Allah ta'ala waxa way hadaan meel walba joogno dhalinyaro Soomaaliya waxa way aan is jeclaano aan ka shaqeyno midnimada ummadda Soomaaliyeed ilaahayna ka cabsano dadkeena aan jeclaano waxyaabaha yariiska oo mataqaanaa oo aan isku haysano aan ka tagno aan fiirino big picture oo ah midnimo horumar barwaaqo let's move forward aad baa mahadsantahay Saadiq gaay daawashayaasha iyo annagaba naga dhul ku anfaco farintaada xigmadaysan tad su'aasha ugu dambaysa Saadiq Wafaa arinta ugu weyn oo Soomaaliya nuusan waxaa la oran karaa waa siyaasadda maadaama siyaasi Maraykan tahay Soomaaliya American khibradda siyaasadeed markii tan Soomaaliya iyo tan Maraykan isku barbar maxaa tan Maraykan ka saxay oo siyaasad horumartay oo baxnimo ku jirto oo nabad ku jirto oo kala duwan ku jirto oo xirfadaysan ka dhigay tan Maraykanka teena maxaa isku dhaxyay xagee iska qabsanayeen maxaa kala duwaya wallahi aadan waa su'aal deep su'aal xawaydiso very deep anu baahan sahay inaan si fiican u sharaxo Soomaaliya anagoo dhan waxaan jirnaa 52 sano xorriyadda ka qaadan Maraykanka wali wadamada adduunka wuxuu yahay maaragtay wana sii badan 237 sano ayuu jiraa 237 years oo Maraykan jira marka waa garan kartaa waa waqti dheer yahay second taas waxaan bartay waa da'da siyaasadeed soo jireenka Maraykanka waa number 1 ko in Soomaaliya waxaan nahay ummad actually homogeneous oo ah ummad isku mid ah kulligeed Maraykanka waa ummad heterogeneous waa nation Maraykanka ummada intaas adduunyada kala duwan oo different timid way nimankii founding fathers ka wadankan oo wada noqday mataqaanaa Thomas Jefferson James Adams George Washington Alexander Hamilton Ben Franklin adina nimankii founding fathers ka wadankan I think waxay qoreen waxaan aaminsanahay waxa horta wax la isku maamulo oo Ilaahay wuxuu soo dejiyay wax ka wanaagsan ma taas kitaabka Quraanka waa the best constitution of bini aadam ku dhaqmo ana aaminsanahay waa kitaabkan Ilaahay uu soo dhigay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam laakiin bini aadam wuxuu sameeyay waxaan aaminsanahay waxa bini aadam wuxuu sameeyay qoro the best constitution of bini aadam qoro waxa weeye waa United States constitution waa very short and it goes specific waxay aad u qoraysaa waxa waaye separation of power ka hadda jirada waxa waaye madaxweynaha ee mataqaan awood u leeyahay Congress awood u leeyahay iyo courts awood u leeyahay waa waxa la yiraahdo check and balance annaga Soomaaliya hadaan nahay 1960 constitution loo qoray constitution waxa waa shaqo fantastic hadda dowladan oo maaragtay road map-ka waxay qorayaan maxaa taqaanaa constitution cusub annaga Soomaaliya saan aaminsanay waxa weeye ma advocate gareynay ama ma dhahay ha noqono sida Maraykanka oo kale Maraykanka waa Jeffersonian democracy waa democracy aad u horumarsan weey laakiin waxaan aaminsanahay waxa inaan gaari karno dimuqraadiyad diinteeni wadata oo annaga levelkeeni Soomaaliya anfacaysa aan ka wada mar labaad annaga waxa yiraahdaa meel marka ta taageerada illegal la isha Australia Soomaaliya waxa dadka jooga iyaga anaga ilaan wax dantu ah laakiin annaga hadaan fikrad aan ku saacideyno waxa kamid ah horta in bulshada Soomaaliyeed dhammaan horta aan waxaan ugu yeeri lahaa aan codsanaa waxa inaan naga dhacdo genuine reconciliation inaan dib heshiisiin rasmi ah oo inta niraahno war hay'adda aan iscaafino war qaladka waa naga dhacay waa islaynay waa isburburinay laakiin Soomaaliya nahay maxaa dan noo ah taa markaan gaarno
أمر لبعض reconciliation كود إن قلنا reconstruction إن ودك دي بسرعة سوسة لسنا أنا وفيرنا قبل بالتالنت إمرت كلية تستحاله إن health care ودك الصومالي سرعة education health care استحلا مركز لسنا I think it's gonna be multi-stage قاعدين نسا international community إن أنا أشرح عن متقنا إن أرمان أدور هذا وحاول الصومالي العقل السيء بين البار عمل ودنا حلوة متقنا 20 مليون لاتين مليون الصومالي عقبة عن تاي long term investment or at least سنة كي 1.5 to 2 billion dollar جاي تاس أيام متقنا long term recovery أرن الصومالي هذا كجرت وحواي وحاء وبتي مع مرقبليسيا لابتي دولة فدرال كان متقنا أودي وسيلة عيسى أنا شخصيا waxaan jeclaan lahaa in dadii maamul goboleedyada ay danku jirto wixii danku jirto in la raaco laakiin mar walba in dawladda Soomaaliya dawladda dhexe awoodeedan aad loo daciifin Mareykanka 16 confederate state-ka Mareykanka Soomaaliya inuu Mareykanka noqonayo markii inta la qorin intii aan constitution-ka mataqaana interest commerce lagu daray koor 16 kaas oo isku wareereen oo mataqaana awoodda federaalka ayaa u yeeray markii dambe ayaa mataqaana waxa soo baxay sharciga federaalka the federal constitution supersedes state rule. معناه شرعي فدرالك وكحوق بين الكنيستين. مرك تدينا سيدي أي واحد قاعدين كيف فدرالك أي شرعي الله وصي مرة. مرك مرة بحنجعل حوالي الدولة الصومالية إن مرة بكفكرته إن أنا أمض حل على له هل دين له لكن كود داش إن قف كست أو الصومالي إن أنا ظلمين دمر كانوا إن أنا ظلمين وإن أنا ظلمين ما حد كان على يردين أنا ظلمين قفل بحق أولي نصي. وراهن Somali متقنا Somaliland متقنا أنا أرجع على actually إن متقنا يجا أيام نوصل درسنا 1960 مركب حرنمة الصوت اللي قاعدين نورد يجا أيام السوق هذين أي صوت كنا ما ذي مركز كودر درسنا أنا مركب 5 سنين حوالي لبضن هذا كهرت الصومالي شنطة الصومالي لبضن كهرت نور الصومالي صوت الصومالي إن أي آدي حب نظام عدال ودسن ومتقنا وقف كست أو Somali نقول إشمعناه وقف كسومالي أن دم بالجيلين وكشقية من مدى الصوماليين أنا سامي سنة وحوي حدان أنا مال بالصومالي تقول حد وقف كسومالي يقول إن دنتي سراديناي وقوع علينا معنا وحوي تاس أنا كنت دائما برك الصومالي وحوي أنا غير أن قربها جوكته نظامية الدنيا ذكر جوكته أنا إنتان فيرنه أكبرنه وحي مناكسن عن كقادرنه وضعنا الصومالي أنجين لكن هذا كعشنا وحى مركان قرب جوجناي مركان وضعك يكون نقولنا وأنا ضدك مدخنا وعليه الصومالي جوج أنا ضدك إن هو الصومالي جوج محيي قانا وأنا سيجوا الدين اللوكال نيل أورنج التيم ونيل أوبيري all politics is local معناها هو إذا بدنا هو local مركان ضدك قفك بدنا جوج حمر جوج هرقيس جوج بايدبل جوج بوساس جوج كالكعي جوج السجا أنا جا واحد توا لكن أنا كنت أجرنه لكن أنا ما دام أنا وده مصور من ذاك الدول Chinese, Asian, African American وما ذكر دول نوع أنا وروحي محقق علىها محقق كدحية وحي نقدر حيان أن وحي نقدر حيان يعني لأنه وحدي كان مغنيين حبك الشرعي وكرادي قلاسة هذا يريو أنت أسمرك تلفي عين السين مركو عواكس أو وناكسن أو مراكن أكقادن كرنو أنت حن أكتك أنا أمسنة أنت وناكسن أكقادن أو ودن كينجين وقابل جرين وحن ما هذا نقط إنول السوشيال دارت أو كعرسة إن الرقمات كلا أما وحبا قادنين وحيمور مريس هذا الجوال الصومالي الجوال هذا حمر وكذا هذا حاجة عماني ويكون اسم حاله جوال كلا الصومالي بكاس محاكي يعني صومالي قبيل كسميرو بالصومالي حمر وادجين لكن مركب تولك اللي دجنت هذاك تولد اللوكل وي مركب وحن أمسنا وحوي وحكست أو وناكسن وذا أستراليان أقرأ أما الجاينيس أقرأ أما تقانا راشين أقرأ أما إيشيان أما إسبانيك أما مراكب كل وحي وناكسن أنا كقادنه أنكو أبلا جرينا ودن كيني أنا قدرن كيني الدين تيني أنكو حد بيني تاسم فترين الله دلائي أربعة محسن صادق السؤال وقدم ميسا بيبتو الصومالي كديرتا إلا السوق بسان ربع الصومالي باكو إيدين لها بسدعش شيء أنا بدل هذا كم إيديو شغالي دو حاوي دad كنا إيديو مجعلي يا كتو ميسا أنت دبك الصومالي كجرة وعن أمسنا وحاوي دب أنا بدنا أنا كصومالي أنا كيسندي أنا جنا حل كيدنا الجرب أربعة محسن وحمر لبعض ربعنا عبديرة يا آدم يبهذا مثلا بجوت ما تعرف فرصة قالقة وحنلاقي وحاوي الصومالي هنولاتو وحنلاقي مثلا ميول بأنجدون بدونه وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاسوق وها صديق ورفاع وأنا الصومالية صومال أمريكان
aqoon-yahana siyaasiya ganacsada aabba oo halyey door weyn ka ciyaara arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo tan dibaddaba mudanayaal iyo barweyn barnaamijkeenii qurbo-joog intaas ayuu maanta naga eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله. Go fartan i hai, maran go busha.